kulankan oo ahaa mid loogu dabaaldegayay maalinta midowga Afrika ayaa waxaa lagu qabtay xarunta baarlamaanka dowladda South Africa waxaana ka soo qayb galay xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda South Africa madaxda xisbiyada ee qaar kamid ah ururada arrimaha bulshada ee ka jira dowladda Koonfur Afrika waxaana lagu martigeliyay qaar kamid ah jaaliyadaha qaaradda Afrika ee ku nool magaalada Cape Town ajandaha kulankan ayaa waxa uu ahaa midnimada iyo higsiga 2060 ee qaaradda Afrika waxaana xildhibaanada iyo martida kale ee lagu casuumay halkaasi ku dhaxmartay dood kulul oo ay garwadeen ka ahaayeen madaxda baarlamaanka dowladda South Africa aqoon-yahano ka soo jeeda wadamada qaaradda Afrika oo halkaasi khudbado ka jeediyay ayaa ka hadlay dhibaatooyinka heesta qaaradda Afrika sida kooxaha argagixisada rabshadaha ka dhasha siyaasadda dalalka Afrika xilliyada ay dhacayaan doorashooyinka dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha tahriibka heesta dhalinta qaaradda Afrika ay ugu dhamaanayaan badaha wadamada Yurub ayagoo raadinaya nolol dhaanta tantaala qaaradda Afrika ee sidii xal loogu heli lahaa arrimahaasi waxa sidoo kale kulanka aad loogu lafaguray dhibaatooyinka loo geysto dadka ajaanibta ee ku nool dalka Koonfur Afrika ayagoo dowladda Koonfur Afrika aad loogu codsaday in arrimahaasi xal u hesho maadaama ay soo noqnoqdeen Abdullahi Ali Xasan oo kamid ah ardayda Soomaalida ay wax ka barta mid kamid ah jaamacadaha ku yaala dalka Koonfur Afrika kana qayb galay kulankan ayaa la hadlay warbaahinta qaranka waxa uu ka hadlay muhiimadda kulankani kulanka wuxuu ahaa kulan aad u qiimo badan oo tusaale ka ah soo noolaynta Afrikaanimada qaaradda Afrika sidii hadii ay guru isku walaashan lahayd wax wada qabsan lahayd hadii aan si kale u dhigo fududeeyo wuxuu ahaa kulan fududeynaya ama taageeraya ajandaha ururka midnimada Afrika oo ajandaha ururka midnimada Afrika oo kontonka sano soo socota ay rabaan in Afrika wax uga bedelaan waxa sidoo kale kamid ah dadkii ka qayb galay doodan kulul xadiis xaaji aadan oo ka socday jaaliyada saasa waxaana warbaahinta qaranka u sheegay in kulankan muhiimad gaar ah u lahaa dadka Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika muhiimadu waxay tahay muhiimada ay loonahay dadka Soomaalida maanta waxa weeyaan dhibaatada wadanka South Africa nagu haysata waxaan u baahanahay dadka Afrikaanka wax kasta oo midnimadooda muujinaya inaan ka qayb qaadano aanan tusno dad Afrikaan oo walaalahooda oo wadankoodana wax soo qabtay inaanu nahay madaxda baarlamaanka dowladda Koonfur Afrika ayaa ballan qaaday inay sii wadi doonaan kulamada noocan ah si wada hadalka bulshada loo badiyo isla markaana loo helo xalka qaaradda Afrika Abdullahi Maxamed Amiin Abdullahi Qorshe telefishinka qaranka Soomaaliya xarunta baarlamaanka South Africa